gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Ismaan Barre Maxamed ayaa sheegay in aysan aqoonsaneen shaqaale aanan soo marin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo guddiga madaxa bannaan ee shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaana nidaamku u yahay wasaarad kasta oo macnaha qaadanaysa shaqaale inuu guddigaas sharciyad macnaha ay ka haystaan shaqaalahaas adiguna aad inta kormeerta aad ogaata يعني شغالها وزارة يوضع أنت واجبات الأخرسيو حقوق شغالها هي شغالة يعني حتى وحيابها الأحمر على خلافات قفك أنت لو ترى معنا مشقة يا ساعة الليل ما روش غيستا قفك من الواحد بقى إنبرن أيام في النبي أنت أنا كان يستي قبل الله هي شغالة من الدموين وحد جلها سيدا الله شيء inay gudoomiyaasha gobolada ay shaqaale iska qoraan inay gudoomiyaasha degmooyinka shaqaale qoraan oo aysan ka warqabin wasaaradda aysan ka warqabin. hadalka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku soo beegmayay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ay su'aalooyin weydiiyeen wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabelle su'aalooyin la xiriira shaqaalaha ka howlgala dowlad goboleedka Hirshabelle. heshiisyada aad gashay maxaa kaaga qabsoomay ma jiraan caqabado ku haysto oo aad ka shaqeyn lahayd yaa xaq u leh in ay diiwaan geliso shaqada maaragtay shaqaalaysiinta shaqaalaha Hirshabelle wasaaraddaadu ma leedahay istiraatiijiyad dejinta istiraatiijiyada shaqada iyo shaqaalaysiinta haddii ay leedahayna inaad noo faahayso oo noo bayaanaysa hay-adda aad ku soo gaabisay youth aad ku soo gaabisay in ay bixisay mashruucaasna ay u dhiibtay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha federaalka maadaama adiga baartin aad la tahay ka Hirshabelle ahaan lacagta ay ku bixisay mashruucaas waxaan la soconaa inay tahay 24 milyan 24,000 lacagtaas waxaan ku yeelanaynaa ka wasaarad ahaan 3 milyan iyo waxaan ku yeelanaynaa 430,000 lacagtaas mudane wasiir ka wasaaraddaada wax ay ku qabatay ma jirtaa mudane wasiir waxaad noo sheegtay in aad hayso mashruucaas oo gaarayo 1 milyan marar badanna waxaan maqlayay maadaama aan ahay gudoomiyihii guddiga shaqada iyo shaqaalaha in mashruucaasi caqabado badan aad kala kulantay qofka u shaqeeya tusaale ahaan shirkadaha korontada oo jooga Muqdisho meesha $400 uga shaqeeyo ninka korontada ka shaqeeya jooga oo qaata $50 waa maxay sababta kormeerka aad sheegtay kormeer oo caasimadda kaliya ku egmiyaa mase kormeer dhammaan maamulka Hirshabelle wada ekeeyay miyay jiraan shaqaale u shaqeeya wasaaradda dowlad goboleedka Hirshabelle mushaharka ka qaata Axmed Nuur Cabdullaahi Bashiir oo ah wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen qaar ka mid ah baarlamaanka. waxaa jirto wasiiradii hore ilaahay qaraasiyo sida aad ogtihiin ilaa hadda wax mishaar oo jira haba yaraatee ma jirto wasiiradii ayaa wax mishaar aan qaadanayninba wasaaraddu heshiis ay ayadu si toos ah u gashay amba hay'ad ay la gashay amba shirkad ay la gashay amba company ay la gashay ma jirto wasaaraddu sideedaba waxay u taagan tahay in ay yarayso shaqo la'aanta ka jirta dowlad goboleedka Hirshabelle labor marketing waxaan u malaynayaa in aan ka hadlay maxaa la yiraahdaa shaqo abuurista wasaaraddu waxay ku tahay waajib muqaddas ah mashruucaani wuxuu ahaa codsiyo loo diray hay'adaha UN-ka markaasi lagu danaynayay in lagu horumariyo dhalinyarada dowlad goboleedka Hirshabelle ee ka soo jeeda maxaa la yiraahdaa labada gobol alxamdulillah mashruucii waa la helay Maxamed Deeqal Fagal Mudug TV